isweydaarsiga sirdoonada Israa'iil iyo Iiraan ayaa u muuqda dhawaanahan inuu xadka ka sii baxayo. Labada maamul, Tehran iyo Tel Aviv, way sii labalaabayaan dadaaladooda ku dhisan beegsiga shakhsiyaadka dalba uu dal kale u arko inay xaggiisa shar iyo sharwadayaal ka yihiin. Hadda sirdoonka Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen shirqool ay Iiraan ku weerari lahayd safiirkii hore ee Israa'iil ee Turki oo ka dhici lahaa magaalada Istanbul ee dalkaas. Sida ay ku warameen warbixinada, Iiraan ayaa qorshaysay inay afduubato dhowr dalxiisayaal oo Israa'iil ah iyo diblomaasiyiin ku sugan Istanbul oo uu ku jiro safiirkii hore ee Israa'iil iyo xaaskiisa, ayna diyaarisay howlwadeenadii weerarka fulin lahaa, iyadoo qaar ka mid ah Israa'iiliyiinta la badbaadiyay wax yar ka hor inta aanu weerarku dhicin. Sirdoonka Turkiga iyo booliiska waddanka Turkiga ayaa xiray 10 qof oo la tuhunsan yahay oo ay ku jiraan xubno meelo fogfog wax ka joogta iyo dad la shaqaynayay oo ku sugnaa hoteelka Sol Hotel iyo guryo kale oo ku yaala Istanbul. wakiilo ka tirsan sirdoonka Iiraan iyo ilaalada kacaanka Islaamiga ayaa iska dhigay arday, ganacsato iyo dalxiisayaal si ay u afduubtaan Israa'iiliyiinta. Turki waxay sheegtay in sirdoonka Israa'iil ee Mossad ay heleen Israa'iiliyiinta isla markaana ay diyaarad qaas ah ugu duuliyeen dalkooda Israa'iil. Inkasta oo lagu guuleystin howlgalkan la fashiliyo, haddana saraakiisha Israa'iil waxay sheegeen in weli ay jirto halis ka imaanaysa Iiraan oo ay wajahayaan Israa'iiliyiinta ku sugan Turkiga. Saraakiisha waxay sheegeen inay jiraan ugu yaraan 3 unug oo Iiraaniyiin ah oo aan weli la xirin, isla markaana in la raaco oo la soo xiro ay noqon doonto hanaan waqti badan qaadan karta. Waxaa la rumaysan yahay in Iiraan ay aad u doonayso inay meel ka soo afduubato Israa'iiliyiin si ay guul ugu muujiso shacabkeeda xilli dagaal xoogan oo sirdoon uu u dhexeeyo labada dal. warka ku saabsan shirqoolka la fashiliyay ayaa yimi wax yar ka hor inta aan wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil uusan dhawaan tagin Ankara. Toddobaadadii tagay nolosha muwaadiniin Israa'iil ah ayaa la badbaadiyay, waxaana ku mahadsan wada shaqaynta amni iyo diblomaasiyadda Israa'iil iyo Turki, ayuu yiri wasiirka amuraha dibadda ee Israa'iil. Iiraan ayaa ka dambeysay isku dayada weerarada argagixiso. Sirdoonku taasi shaki kama qabo, kama hadlayna kaliya dilka muwaadiniin Israa'iili ah oo aan waxba galabsan, balse xadgudub cad oo ka dhan ah qarannimada Turkiga. dalna ma ahan inuu u dulqaato argagixiso ku sugan ciidiisa, ayuu yiri wasiirka amuraha dibadda ee Israa'iil.